16 sano ayaa maanta ka soo wareegay maalintii uu Erdogan iyo xaaskiisa muqdisho ka dagayeenna madaxweyne Sheekh Shariif soo dhaweeyayna sawirkii dadka qalbigooda jabsaday waa sawirkii laga gaday adduunka waa sawirkii walaaltinimada ka bilaabmatay Turkiga iyo Soomaaliya 16 sano ka hor waxyaalaha iska fudud ee Turkidu noo sheegeen oo aan ku xitaa garanayn waxa kamid ah inay dhaheen Soomaaliya waa dhul aad u kheyraad badan oo nimco Ilaahay ku beerayba hase yeeshee dadka meesha degan ayaa ka dhiman tahay aqoontii iyo cilmigii ay ku soo saaran lahayn kheyraadkoodaasna waa qaybta koowaad aan ka qayb qaadanay anaguna inaan cilmigooda ku kordhino sidee wax u soo saaran lahayn naftoodan wax u tari lahaayeen ay ka qabteen falkaasna waxa kamid ah laba hay'adood oo waxbarashada dadka Soomaaliyeed ka qayb qaadan doonto kobcinta maskaxdooda ta koowaad oo ah tikadan waxay ku faantaa inay kun gabdhood oo agoona ee waxbaraan waxay kaleena ku faanaan inay gabdhahan agoonta ee barayaan aqoontooda oo ah afka Turkiga hiddada iyo dhaqanka Turkida iyo taariikhdii ama sooyaalkii Turkida waxyaalaha ajiibka waxa kamid ah markaa waxaan loo doortay in gabdha agoona la soo urursado ilaa kuna oo waxbarashadii dhameed la sheegay ee noqotaa kaliya afkii hiddada iyo dhaqankii sooyaalkii Turkida wuxuu u soo kordhin karaa ummadda Soomaaliyeed waxa ulajeed laga leeyahay gabdhahaas agoonta in la soo qabtay oo aqoontaas kaliya la barayo maaha hadda maadi ee ku shaqo tagi karaan hadhow haddii ta Turkiga tagaanba ma waxaad u maleynaysaa inay ka shaqeyn karaan warshad inay dhaqtar ka shaqeyn karaan cilmiga hadda ee tika soo bandhigayso mid lagu shaqo tagi kara maaha laakiin waxa la moodaa inuu yahay kuwa qaarkood oo wadanka wixii soo kobci lahaa dan yarta la dulmiyay meel laga dhaqaaqay ama waxba haysanba la yeelan lahaa maskaxdooda la qabsan lahaa inta kaliya kuma eeka